الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي باب مهده والصلاة والسلام على رسول الله maanta waxay ka mid tahay maalmaha taariikhiga ee Soomaaliland Soomaaliland maanta tallaabo horumar ay qaaday dhinaca siyaasadda nabadgelyada Soomaaliland oo dhan maanta waxay ku guuleystay hawl culus oo aanay dalalka la ictiraafsan yahay ee naga dhaqaale badan badankoodu aanay gaarin taana awood aanu leenahay dadka dheer kumayna gaarin Ilaahay mahadiyo ku gaariyo kaalmada Ilaahay cid kale oo inooga abaal sheeg kartaa ma jirto kala daayirahayna siiyay kolka koobaad waxaan ugu mahadnaqayaa shacbiga Soomaaliland meel ay joogaanba mar labaadka waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiyada qaranka saddexda xisbi kulmiye iyo wadaniyo oo dhammaan taageerayaashooda iyo madaxdooduba si la jecel leh wadaninimo leh nabadgelyo leh mustaqbal dhowrid leh ay u tartameen oo ay howlgaleen waxaan kaloo mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo culays weyn ku dhacay iyaga iyo shaqaalahoodaba iyagana waynu mahadnaqaynaa hawl aan qiyaas karin baa ku dhacay iyo barashar baa iyagana aad iyo aad baynu mahadnaqaynaa waxaynu u mahadnaqaynaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii inoo suurtageliyay dal jira xuduudda daafaca gudihiisa kala nabad gala tartanka intaa la galana iyaga oo naftooda horeyaala oo xaasaskooda iyo carruurtooda aan danayn ee ta qaranka ka horreysiya iyagana ugu mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee caalamiga ah ee dawladda leh ee leh haddii la urur leh dhammaantood taageerada ay nasiyeen ee aqoon leh ee waana leh ee dhaqaale lehna waynu ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyntii waxaynu u mahadnaqaynaa bahda warbaahinta Soomaaliland saxaafadda oo intii ololaha socday iyo intii ka dambeysayba mar walba dhinaca qarannimada iyo danta guud ka ilaalinayay oo la hawlgala shacbiga warar sugan iyo qarannimo ilaalinayna waa mahadnaqaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labada xisbi oo cod iyo wadani oo laba xisbi oo muddo kala madaxdooda iyo taageerayaashooda ay yihiin gaar ahaan waxaan ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiye oo ah xisbigii isoo sharaxay gudihiisa ila hawlgalay guusha dhigay maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guuleysan saddexda xisbi way guuleysteen Soomaaliland baa guuleystay maanta ma nihin annaga iyo idinka waxaynu nahay innaga oo Soomaaliland wax kasta oo Soomaaliland ka tirsato qardoofoy ku baraad buu yimaadaa qoyskaas khilaafa aabiyo inan hooyo iyo inan laba baacimshir wada leh xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisuba inay u tartamayeen Soomaaliland sidan ay tahay ka wanaagsanaato waxa quray wadana ahayd nin waliba war anaa ku hawshaasaan haya tayda hore loogu maraya walaaltinimada dal dhisma lagu tartamay xumaan iyo xisb ummadda kala culeysiyo midna uma inaan gelin saxaafaduna saas dhexdhexaad ku tahay maanta intii baynu haynaa waa qasab kubadda yarada aragteen haddii qola laga badiyo way yara qawmiyootaa waa bini aadmigu waa wax inagu abuuray haddii xisbi wax diidan yahay waa doonaynaa walaaltinimadiisa Soomaaliland laantooda hore u mayso haddaynu kala tirsano cadowgeena badanaya walaalkeen kii wax tirsanayaba baaqnabadeed gacan walaaltinimo iyo waxaynu soo dhamaysan jireen aanu dhamaysano ayaynu u baaqaynaa oo ugu diyaar garoobaynaa waxaan ku soo koobayaa Soomaaliland maanta intay wada leedahay ee heshiiska ku tahay ayaa ka badan wax isku soo karto Soomaaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala wada cadow Soomaaliland waxay horumar kartaa markaynu soo maadno aniga oo maanta ummaddu karaameysay oo codku badnaysay maaha inaan kaliya guuleystay waxay la guuleystay murashaxii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka codsanayaa si karaamo leh oo wadaninimo ah inaanu soo maadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo waxaan ku soo koobayaa oo ugu dambaysiinayaa dalkeena horumarkiisa iyo waxa inoo baran midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaaro xaragana inaagtay garoonka marka ka baxno walaalo kubaddana wada ciyaaro meel ay tahay nin kastoo wax tirsanaya urur kastoo wax tirsanaya qof koox xisbi waxay tirsanayaan waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maaragtay dee gacan qabow
oo walaaltinimo u fidiyo isdhegaysano waxa leexay gar yeeshaan la siiyo weliba wixii culaysa anigu aan qaado waayo anaa la karaameeye anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tiirsanaya in aniga lagu tiirsado iyo xisbigeyga kulmiye ahaana saasaan diyaarunahay ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo xukuumaddiisa oo maanta halkaa aynu joogno ina soo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa leegay qaadeen waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u diraynaa dadkii inagaga dhintay mudaharaadyadii waagii dhaweyto oo runtii nasiib darro ahayd inay cid inagaga dhimato kuwii dhaawacmayna ilaahay caafimaad degdegaa siiyo waxaanu ku ducaysanaynaa somaliland oo mida horumarka cadowgeena oon farxin cadowgeena oo jaba somaliland guulaysto inu soo nimaadno dalkeenna horumarino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu